I'm honored to welcome George and our international partners here today. I am very happy to see you here today, and we are grateful the partnership that we have. It's inspiring to be among so many dedicated leaders and change makers who share commitment to protecting our environment and shaping a sustainable future. So thank you for being here. I would be speaking in Somali thereafter. waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idin kala qayb galo madasha isbeddelka cimilada madashan oo muhiim ah oo midaysa codad kala duwan si aanu uga hortagno mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waqtigeena namely isbeddelka cimilada waxaan jaamacadda Siimad Machadka Cimilada iyo Deegaanka iyo dhammaan qabanqaabiyaasha uga mahadcelinayaa abuurista gogol wada hadal macno leh oo ku saabsan sidii aan si wada jira u dhisi lahayn mustaqbal waara oo dalkeenu gaaro. Soomaaliya waa mid ka mid ah wadamada ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada ee wadamada bariga Afrika iyo dunida inteeda kaleba. Saameynta ugu daran ee isbeddelka cimiladu nugu yeesho waxaa ka mid ah abaaraha soo noqnoqda, sare u kaca heerkulka, roobabka aan la saadaalin karin iyo fatahaadaha, kuwaas oo culays weyn saaray dhammaan tiirarka horumarka ee dhaqaale ee dalkeena, gaar ahaan beeralayda iyo xoolo dhaqatada oo wajahaya caqabado aan horey loo arag. Isbeddelka cimiladu ma aha khatar fog, laakiin waa xaqiiq jirta oo saameynaysa dhinac kasta oo nolol maalmeedkeena, waxayna gacan ka geysteen dhibaatooyin bini'aadanimo oo saameeyay malaayiin muwaadiniinteena. Walaalayaal, 30 sano ee u dambeeyay dalka waxaa ka dhacay in ka badan 20 xaaladood oo dhibaato cimiladu sababtay, kuwaas oo ragaadiyay wax soo saarka dalka isla markaana sababay barakaca dad ka badan 3 milyan oo qof. tusaale waxaa noogu filan abaartii Sima oo dhacday 2016 iyo 17 oo qiyaastii aan ku qasaarnay adduun lacageed oo gaaraya 3.35 bilyan oo dollar sida lagu qoray warbixinta Dina World Bank 2018. halkaas waxaa laga dheexan karaa sida hal dhacdo oo xaaladaha daran ee isbeddelka cimilada ahi inoogu geysan karto khasaare ay adag tahay in si fudud looga soo kabto. hase yeeshee maanta ma aha oo kaliya waqti dib loo milicsado caqabadaha, laakiin sidoo kale waa fursad lagaga hadli karo sidii xalal waara loogu heli lahaa isbeddelka cimilada. mudanayaal iyo marwey, madashan maanta waxaa lagama maarmaan ah inay fahamto in ficilada aan kaga jawaabayno dhibaatooyinka cimilada aysan qeexi doonin oo kaliya mustaqbalka dalkeena iyo deegaankeena, balse ay saameyn xooggan ku yeelan doonaan xasiloonida iyo amniga jamhuuriyaddeena. mudanayaal iyo marwey, fursaddan muhiimka waxaan rabaa inaan idinla wadaago in ka wasaarad ahaan aan hirgelinayno qorshaha Soomaaliyada cagaaran, taas oo in ka badan 10 milyan oo geed dalka lagu beerayo sanadaha soo socda. ilaa iyo hadda waxaa la beeray ku dhawaad 400,000 oo geed. waxaa la dhameystiray waxaan kaloo dhammeystirnay hagaha guud ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada NDC oo odayaashiisu maanta halkan ay fadhiyaan, qorshaha qaran ee u adkeysiga isbeddelka cimilada NAB iyo qorshayaasha loogu gogol xaarayo helitaanka dhaqaalaha cimilada climate finance. sidoo kale waxaan aasaasnay xafiiska National Designated Authority NDA si kaalmo dhaqaale loogu raadiyo arrimaha isbeddelka cimilada ee dalka. waxaan dejinay sharciga ilaalinta maareynta deegaanka. wasaaradda oo ka duuleysa meel marinta xeerka maareynta deegaanka waxay mamnuucday isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo, taasoo dhaqan geli doona 1 bishan oo ay ka dhiman tahay maalmo kooban. waxaan si dhow ula socon doonaa doodaha iyo cilmi baarista lagu soo bandhigi doono madashan. waxaan tixgelin doonaa fulinta siyaasadaha iyo qorshayaasha arrimaha isbeddelka cimilada iyo maareynta deegaanka. gabagabadii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo isbeddelka cimiladu in isbeddelka cimiladu aanu ahayn khatar fog
waa caqabad taagan oo ay tahay inaan si foolka foola u wajahno si wada jira iyadoo loo marayo aragti wadaag iskaashi iyo go'aan qaadasho cilmi ku salaysan taasoo sababi doonta xalinta caqabadaha in hor yaalla iyo abuurista fursado Soomaaliya cagaara adkaysi badan lehna horumar dhaqaale iyo mid bulshaba waxaan rajeynayaa in madashani noqoto dhimbil hurinaysa wax qabadyo la taaban karo waara oo qaabayn doona mustaqbalka jiilasha soo socda